iyadoo wacdaro xooggan ay caalamka ka dhigayso diyaaradda Bayraktar TB2 ee Turkigu uu sameeyo, isla markaasna dalal badan oo caalamka ah ay ku caanamaaleen. Haddana waxaa soo baxaya warar dheeri ah oo ku saabsan in dalal aan horey loogu ogeyn in ay diyaaraddaasi haystaan haatan la ogaaday inay kal hore soo iibsadeen. Waxaana ka mid ah dalalkaasi dowladda Jabuuti oo dabaaldegii 27-kii bishii Juun ee ayna dhaaftay la ogaaday inay haystaan diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee Turkigu uu sameeyay adduunka oo dhanna uu calmaday. Haddaba diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn ee Turkigu sameeyo ee Bayraktar TB2 oo jawi hoose ku duuleysa ayaa casriiqii maanta lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Horaantii sanadkan ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayeen in diyaaradani ay dalka timid iyadoo weliba laga diray kheyladaan ku aadan in diyaaraddaasi ay adeegsan doonto dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo loo adeegsan doono kooxaha mucaaradka ee maamulkii markaas jiray ku kacsanaa. Arrintaasi oo qaybo ka mid ah dadku ay isweydiiyeen sababta ay ku dhici karto iyo in ay macquul tahay. 12kii Diseembar ee sanadkii hore danjirihii hore ee Turkiga u soo dirsatay dalka Soomaaliya burburkii kadib ninka lagu magacaabay jiray Dr. Cabdikani Taarun ayaa isna ka hadlay daroonadan oo xilligaa la sheegay in la siiyey dalka Soomaaliya. Wuxuuna yiri duruuf kasta oo jirta Turkigu waa inaanu qayb ka noqonin dagaalada qabiiliga ah ee Soomaalida dhexdeeda. Dowladda Turkiga waan uga digaynaa arrintan. Warkiisa ayuu intaasi ku soo koobay. Hubka ay Turkigu direen waa in uu kaliya noqdaa mid lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada ah ee ka soo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed ayaa waxay isweydiinayaan, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho, halka ay ka timid diyaaradani iyo xilliga ay dalka timid. Diyaaradda oo joog hoose ku duuleysay ayaa waxa ay dadka qaar ka qaadeen sawirro uu ka mid yahay midka haddan idiin muuqda. Sawirkaas ayaa muujinaya in diyaaradda oo joog hoose ku duuleysay weliba nooca TB2 oo markaasi Bayraktar TB2 lagu magacaabo ay tahay mid horaan soo gashay dalka Soomaaliya. Soomaaliya looma ogola wax diyaarado dagaal iyo hub waxaana saaran cunaqabatayn ay ku soo rogtay qaramada midoobay, taasi oo la xiriirta in ay Soomaalida gudahoodu cadaawad badan isku qabaan, isla markaasna haatan aan lagu aamini karin hub gacmahooda, taasoo keentay in dowladda Soomaaliya marar kala duwan ay codsato in cunaqabatayntaasi laga qaado dib u heshiisiin ay samayso. Balse guddiga qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha hubka ayaa sheegay in Soomaaliya weli aanay u diyaarsanayn heer la siin karo hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo loo ogol yahay tababaro kooban iyo weliba ciidamo kooban sida ku qoran ahdiga qaramada midoobay ee markaasi dabagalka hubka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa waxaa dadku ay aad iskula dhex marayaan guud ahaan magaalada Muqdisho. Geesta kalena hubkii casriga ah ee Ukraine la siiyey oo la sheegayo in uu gaaray dalal Soomaaliya ku dhow. Qaar ka mid ah hubkii ay reer galbeedku u direen dalka Ukraine ayaa ku guuldareystay in uu xitaa gaaro halkii loogu talagalay, waxaana laga yaabaa inuu sii horiyo colaado ka jira meelo fog, sida uu wasiirka difaaca Ruushka Sergey Shoigu oo Talaadadii ka digay arrintani. Mr. Shoigu ayaa isagoo ka hadlayay shir wasiiradeed wuxuu yiri galbeedka wadar ahaan iyagoo rajeynaya inay sii daba dheeraato colaadda Ukraine waxay sii wadaan saadka hubka ah ee ballaaran ee ay siinayaan nidaamka Kiev. In ka badan 28,000 oo tan oo shixnad militari ah ayaa mar hore la geeyay dalkaasi, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga dalka Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay xogta militari ee Ruushka, qaar ka mid ah hubka ay reer galbeedku siiyeen Ukraine ayaa ku faafaya gobollada bariga dhexe iyo suuqyada madow ee dalal ku yaala qaaraddaasi. Hadalka wasiirka ayaa yimid wax yar kadib markii baaritaan uu sameeyay telefishinka RT Ruush
uu muujiyey in hubka halista ah ee Mareykanka iyo wadamada UK iyo dalal kale oo ku yaala NATO ay siiyeen Ukraine lagu iibinayo shabakada dark web oo ah qayb internetka madow ka mid ah, halkaasi oo qaar ka mid ah hubka laga soo iibsan karo iyagoo soo bandhigay sawirro iyo sicirka hubkaasi. Ganacsatada reer Ukraine ayaa la sheegay inaysan kaliya iibin hub yaryar ama jaakadaha rasaasta, laakiin sidoo kale ay sii iibiyaan qalabka casriga ah sida Javelin iyo NLAW oo ah nidaamka ka hortaga taangiyada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo ka hortagga gantaalada laga soo gano diyaaradaha daroonka ayna cid wadin. Si kastaba ha ahaatee, si buuxda meesha loogama saari karo in iibsadayaashu aysan dhab ahaantii iyagu haysanin hubkan, maadaama baarayaasha telefishinka Ruushka aysan soo bandhigin wax iibsi ah oo ay u sameeyeen qaab tijaabo ah. Dalalka uu hubkani gaari karo waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya oo ah dal ku dhisan qaab fowdo ah oo aan lahayn xad kontarool oo ciidan iyo ciidamo xuduudeed kontaroola hubka gelaya waddankaasi Soomaaliya.